15 bishii 11aad 2022 gobolka City Uttar Pradesh ee waddanka City India xarunta booliska waxaa timid qof haweeney ah oo xilligaas doonaysay gabar walaasheeda oo muddo 3 maalin ay weysan tahay nolol iyo geeri in meel loogu soo tilmaamo. Waxaa gabadha City booliska ay ku tiri muddo 3 maalin si toos ah walaasheedaan u wacayaa taleefanka waa uu ka damay cidna iimaysan jawaabin 3daas maalinna meel iigu soo sheegay booliska gabadha ku tiri. Booliskuna waxa isla markaa gabadha City su'aal ay sii weydiiyeen ee noqotay in ay ku dhahaan waqti intaaneti la eg walaashaada miyay maqnaan jirtay. Waxaana gabadha ugu jawaabtay maya waa waqtigii ugu horreeyay oo walaasheeda waqti intaas la eg aanan arag xaafadana ay ka maqnaato. Qaabkii sida ay ku heli karaan boolisku waxa istuseen in ay tahay GB location ayagoo adeegsanaya gabadha City la waayay in ay baadi goob u galaan meeshii ugu dambeeyay ee taleefankeeda uu ka daarnaa. Waxaana goobtii ugu dambeeyay ee taleefanka gabadha City ugu dambeeyay uu noqday booliskana GPS-ka uu tilmaamay goob 2 maalin ka hor meyd ay kasoo diiwaan geliyeen. Halkaas waxaa ka soo wacay qof xilliga City u sheegay in walaashiisii ay geeriyootay. Booliskuna halkaas City marka ay tageen waxa ay kula kulmeen haweeney wajiga laga dhaawacay oo aanan la aqoonsan karin meydkeeda. Warqadan la ag dhigay warqadan waxaa xilliga City ku qornayd wajigii aan ka dhaawacmay cidna ima guursanayso sababta City darteed aan isku dilay. Booliskuna wax xujo ku noqotay in hal goob 2 qof lagu waayay qof meydkiisa ay heleen qof kalena ay waysan yihiin sida iyo qaabka iyo sida wax markaas City u dhaceen ilaa ugu dambeyn heer booliska ay soo ogaadeenba qofka la waayay mas'uuliyadda in qofkaniti la dilay uu lahaa. Arrinta sida wax ay u dhaceen booliska warbixinadii ugu dambeeyay waxa ay ka dhaheenna arrinta sida ay ku dhamaatay muuqaalkaniti aan ku faaqidi doonaa. balse tan gudgelin muuqaalka markale wax ka codsanay in muuqaalkaniti alla garasiina share gareso haddii aad ka mid yihiin bahweynta nugu xirnaan ugu soo birto wad ku maastaa waqti ku bixinaysa daawashada muuqaalkan aan gudagalno muuqaalkeena maanta. qisadan waxay ka dhacday xaafad lagu magacaabo Tori kana tirsan gobolka City Uttar Pradesh ee waddanka City India. Waxa halka City ku noolay nin lagu magacaabo Aaron walaashiis ka yar oo la dhaho Bayal iyo xaaskiisa. Hal goob iyo ku wada noolaayeen oo noloshoodu waxay u muuqatay mid caadi ah. Aaron iyo Bayal waalidkood waa ay geeriyoodeen oo waxa la cadeeyay in labada waalid iyo gacantooda isku dileen. Sababta ugu weyn labadan waalid isku dileen waxa ay ahayd deyman ciday u soo galeen oo waxa jirtay labadan waalid in reerka ay u soo qaadeen lacag deen ah oo ay ku aroosinayeen ninkan orodka ee lagu magacaabo Aaron. Aaron arooskiisa si hagaagsan ayaa loo dhigay isagana waalidkiis kuma garab siinin oo lacagti waa ay adkaatay in dib loo celiyo oo mar kasta waalidku waa loo imaadaa oo dadkii qaraabada ay u imaadaan waxay ku dhahan lacagti aad naga soo qaadeen aawe ballanti waa ay dhamaatay marba ballan cusub iyo waalidku qabsadaan ilaa ugu dambeyn labadii waalid ay xamili kari waayeen diinkaniti culaysaadka mar walba ka imaanaya su'aalaha laga weydiinaya in ay celiyaan iyaguna aysan awoodi karin. Waxa ay istuseen labadan waalid halka ay kaga dabaalan karaan dhibtaniti inay tahay in ay isdilaan sidaasay dhibku uu ku dhaafo. 22kii bishii 5aad 2022 meydka labadan waalid ee qoyskaniti yaa la helay. Arrintu marka waxa ay noqotay xogaha xanuun oo gabadhan reerka u yar ee lagu magacaabo Bayal nashtintii ay ka naxday xitaa labadeedii waalid in ay geeriyoodeen waxa ku dhacay xagga City niyadda in ay aad kaga xanuunsato isku buuqday xanuuna xagga City maskaxda ay asiibeen oo xaafaddu waa lagu yaqaanaba in isku buuqa City ay qabtay xaaladdu sida City marka ku socotay oo gabadhanitina ugu dambeyn waxa ay ka tustay gabadhaniti reerka u yar ee lagu magacaabo Bayal in ay ka aargoosato xubnaha City qaraabada la ahaa qoyska ilaa 4 xubnood gaaraya oo deeminka laga soo qaaday maadaama ay waalidku culeysiyeen waalidku uu isdilay waxa ay istustay in ay xalka kaliya ay tahay in ay ka aarsato oo sidaaniti aysan ku dhaafin maadaama walaalkeed uusan ku raacaynin waxaaniti ay sameynayso falka dilka ah waxa ay samaysay inay istiraado qof kale u raadso oo qof hawlgalkaniti kula fuliyo raadso. Xilligaas waxa ay xasuusatay nin xiriir kala dhaxayn jiray waqti oo dibiyay qofkaasiti u raadisay waa is walaysteen waxay u sheegtay marka in rabitaan
inay doonayso in ay xiriirka dib isugu soo laabtaan way wada hadleen labadanayt qof oo ninkan gabadha xiriirka kala dhexeeyay oo ay kala tageen oo dib isugu soo laabanayeen waxaa lagu magacaaba AJ Kumar AJ iyo Bayal xiriirkoodii dib ay u cusboonaysiiyeen laakiin Bayal markan dambe xiriirka waxa ay ka lahayd ujeedo ninkaniti in ay geliso in danteeda ay ku fushato isna guursadaan kadib waxa ay u sheegto ay ku tiri markii cabaar ay wada socdeen xoogaa waqti ee waxay tiri inaan isguursano shuruud yaa ka horeysa oo jaceylkeena uu najaxo haye waxa uu ku dhahay maxaa sidee markaa wax u jiraan oo kale maxaa doonaysaa shuruudda siiti maxay tahay waxa uu filayay kulay shuruudo adduunye inay ku xiri doonto waxay ku tiri ani waxa aan doonayaa dad in aan ka argoosto oo ii qaarajiyaan rabaa adiga yaa falka siiti samayn karo oo iga xoog badan marka waxa aan doonayaa in falka siiti ay ii fuliso ninkan AJ bilowg waa uu ka diiday gabadha siiti Bayal waxa uu ku dhahay waxaanayd adiga aad wado waa wax aan suurtagal ahayn oo ma dhici karaan waayo xiriirkiina maxaad ugu qasbaysaa dhahay in aad fal dil in aan sameeyo kadib aad markaasiiti u guuleysanay xiriirkeena maxaa sidaasiiti u samaynaysaa ayuu ku dhahay gabadhan Bayal kolba waxba u caddaayay waxay ugu jawaabtay waxay tiri niyahow haddii falkaniitii aad samayso oo aad sida aniga aan rabaa igu raacdo wax walba way noo dhammaanayaan guurkeeni waa qabaqabsan karnaa laakiin halkan shuruuda ka horeyso waa in afartanayta xubnood oo qaraabada ilaah aan doonaa in aan dilo waa inay igu garab siisaa jacaylkeenuna waaba shuruudiisa ka mid ah inaan isguursano hawshan aan dhammaynaya ku tiri AJ wuxuu is adkeeyaba ugu dambeyn waxa uu ku dhahay haywaya waan ogolaa gabadhan Bayal waa falkan adiga waxa aad doonayso oo kula sameynaya oo in marka aan dadkanit kula dilo marka waxay ku tiri maadaama qaraabo dadkanit ay leeyihiin ma doonaa in ay iga shakiyaan waxa aan rabaa naqshad iyo qaab aniga aan dejistay in hawlgalkanit aan sameyno okay waxa ku dhahay qaabka sidee doonaysaa marka in aad wax u fuliso sidee qorshaysiyo marka ku dhahay waxay ugu jawaabtay marka ugu horeyso waa in walaalkeyga iyo dadka xaafadda ila degaba aan ka dhaadhicinaa in aan geeriyooday oo meydkeyga aan markaasiiti ay ku qancaan ay arkaan taasoo ku dhahay qof noolaabatay sidee isku dilaysaa waxay ku jawaabtay ani misma dilaayo waxa aan samaynaynaa qof aniga ii eg iyaan soo raadinaynaa muhiimadda uun qofka xitaa in marka dhirirka iyo muuqaalka aniga uu ii shabahay iyo midabka wejiga dhib ma lahan waxay tiri wejiga waa aan ka bedelaynaa xitaa haddii qofku aad iigu ekaan waayo wejiga waan ka bedelaynaa oo dhaawac badan aan gaarsiinanaa heer la aqoonsan kari waayo si muuqaalka kore marka la fiiriyo isku mid intaan u noqono walaalkeyga uu sidaasiiti ku aamino dadka deeskii xaafadda xataa ay noqoto in agtooda aan ka dhinto oo falkan waxa aan doonaya iyadoo aanan waxba shakiya la muujinin in dadkaasiiti qaraabada aan ka argoosto sidaasiiti ku tiri AJ waxa ku dhahay okay waayahay waan raadinaynaa qof adig kuu eg yaan raadinaynaa markaasay tiri okay soo raadi waxaa muhiima in qofkaasiiti aan soo helno kadib in aan qorshaha sidaasiiti aan ku galno AJ baraha social media ayuu baaritaano ka sameeyey bal qof uun u ekaan karo marka waxaa dhacday isagoo goob ku sugan xilliga siiti uu ka tukaameysanayo wuxuu arkay goobaha siiti ka mid ah dukaan ah oo dharkii waxyaabaha siiti lagu iibiyo in uu ku arkay gabar u eg gabadhaniti uu xiriirka kala dhexeeyo bilowgina waxa marka ay doonayeen waxa ahaydba qof u eg gabadhaniti in ay helaan muuqaalka oo kale muhiim u ahaa waa uu fiiriyey waxa uu dhahay muuqaalku waaba ay shabahdaa gabadhii markaa la hadla Bayal waxa uu ku dhahay gabar yaan soo arkay oo muuqaal ahaan ku eg ku shabahdo gabadha siiti waxa waaye howlgalkeena waa ku fushan karnaa okay waxay tiri la hadal sambaatiye ka diyaarso oo xiriir marka inaad la samayso isku day oo aad soo jiidato si kalsooni aan kaga diyaarsano hawsheenana aan ugu fushano okay waayo ugu dhahay marka marar kale iyo meesha ku laabtay ninkaniti AJ gabadhan waxaa la dhahaa Hema waxa marka ay ka shaqeynaysana goobta siiti dukaanka ee dharka lagu iibiyo waxa ay iska ahayd hooyo iska haysato hal cunug oo 9 jir ah ninkeedu waa ay kala tageen xilligaasiitina waxa ay la nooleed walaasheed iyo hooyadeed iyo guriga kula nooleed oo nolosheedu waxa marka iska ahayd in sidaasiiti marka cunugeedu mid iska korsato ninkan gabadhaniti Hema waa uu la hadlay waxa u suurta gashay inuu ciwaanada ay kala qortaan wada hadlaan wada sheekaystaan xiriir badan markaasiiti la sameeyay waa uu kasbaday marka xaaladeedii uu wareystay waxay u sheegtay in marka iska taa hooyo hal cunug haysato 9 jir korsanayso hooyadeed marka ay la nooshahay guurkeedana uu ka burburay xaalad markaasiiti in ay
wax soo martay u sheegtay niyad jab iyo waxyaabahaas nolosha wuxuu ku dhahay dhib ma lahan weli waa ka socon kartaa isagoo markaa u muujinaya garab oo kale iyo wuxuu dhahay garabkaaga ahay wuu soo xiriirin jiray gabadhan marka waxaa jirtay xaalad mar qabsatay oo lacag ay u baahneed oo marmarka qaar waxa markaa uu dhiirigeli jiray ninkaneeti ninka waxa markaa uu ka faa'iidaystay jaaniskaasiiti ay gabadhan lacagta ugu baahatay waxa ay soo weydiisay ay ku tiri niyow hebelow AJO lacagtiisa kaa rabaa marka ii soo dirto si aan hawl kaga furdaamaysto maadaama adiga aad saaxiibkii aad tahay lacagta aniga gacanta aanan ku helin AJO waxa ku dhahay okay waaya lacagta waan ku siinayaa marka laakiin waa in aan is aragnaa oo kale ayuu ku dhahay okay waayay tiri marka xilligaas ay address iyo goob marka kuma aysan ballamin oo ay isku arkayaan laakiin waxay sadeen hay waayahay AJ isla markii waxa uu la xiriiray Bayal marka bilowga waxa ay ku tiri oo ay qorsheenaysay gurigaaga ku ballamiyay tiri halkaas si aan falkan dilka ugu sameeyno si aan marka halka kaga soo dhamaano kadib aan meedka u soo qaadno halkaaniita u keenno laakiin ninka AJ maadaama uu xaaladaniitina uu iska ilaalinayay boqolkiiba boqol in saameyn aysan ku yeelanin waxa uu ku dhacay uu sameeyey hadhay may Bayal waxaa samaysaa gurigaaga ayaan ku ballaminayaa ayuu dhahay habeenkaas 12 bishii 11aad ay soo galayso 2022 habeenkaas gurigaaga ayaa ku ballaminaya halkaas yaa lacagta marka aan ku siinayna aan ku dhahay marka halkaas markii aan keenno hawshiina halkaas ay kaga fashalinayna okay waayay tiri gabadhan Bayal habeenkaas waxa ay samaysay in cashada marka ay siisay walaalkeed iyo gabadha uu qaboba waxa ay samaysay in cabitaankii ay daawooyin ugu darto ay hurudsiiso si xaaladaniiti goobtu ka dhacayso aysan waxba warqaba uusan uga helin walaalkeed sidaas ay tiyay markaa samaysay gabadhan qabarmoogii iska aheedu waa ay soo baxday goobtu lagu balamiyay markaa timid ninkan diyaar ayuu ahaa gabadhana markaas tiwaaba ay sii sugaysay waxa ay ku tiri markaa oo ku dhahay isaga gabadha markaa soo dhawow gurigii soo geliyay guriga marka waxaa jiray qayb dabaqoo kore iyuu lahaa goobtaasiita halkaa waxaa kusii sugaysay gabadhaniiti Bayal oo waxa ay haysatay shay ay ku dhaawacdo gabadhaniiti waa uu soo waday goobtii uu keenay wax yar markaa sheekaysteen gabadhan Hema daacadii iska aheedo waxa isleed ninkaniiti lacagtii u siinayaa laakiin goobtii markaa lagu dhaawacay goobtii ku dhacday ku dhiig baxday waxa marka ay gabadhaniiti Bayal sii samaysay si aan loo aqoonsanin maadaama wajiga xoogaa ay gabadhan ku kala bedelanaan karaan waxa ay tiri sugsug waxaan samaynaynaa si gabadhan muuqaal ahaan way ii egtahay tiri oo mishinkeenu wuu noo hagaagaya laakiin waxyaabo yar inaan xalino ku dhahay okay maxaa xalinaynaa ninkanit AJ waxa ay tiri gabadhaniiti Bayal ee falka qorshaha wadatay dharka horta waa inaan kala bedelanaa oo dharkan aniga aan wato walaalkii hadda uu igu arkaya caawa gabadhan meedkan yaa u gelinaynaa dahabkeygana waa u gelinaynaa waa ay sameeyeen sidaas wajiga marka waxa ay sameeyeen saliidii kaga shubeen si gibi ahaanba aan loo aqoonsanin habeenkaasiitina goobta waa ay ka tageen subaxnimadii maalintii ay ku beegneed 13 bishii 11aad 2022 waxa dhacday markii walaalkeed uu soo kacay subaxdii gabadhii waa uu waayay walaashii waa uu raadiyay dabaqa koray markaa tagay waxa uu ku arkay gabar meesha taala markaa kuwana marka waxa ay sameeyeen labadaniiti xiriirka ka dhaxeeyay ee gabadhan AJ iyo Bayal ee falkan dilka ah sameeyay gabadhan maadaama walaalkeed ay qaldaysay oo ay ka dhaadhicinaysay in dhimatay oo kale oo gabadhan ay isku bedelaysay booskeed waxa ay sameeyeen warqadii ag dhigeen markaa oo ay leeyihiin aboowe anigu waxa waay wajiga saliida iga daadatay waa in isfiiriyo waxa waay waa isaga fool xumaaday cid i gursanaysid inay jirto ma lahan umaleyn maayo sababtaas darteed waxa aniga aan go'aansaday in aniga aan isdilo sidaas ay warqad lagu qoray waa la ag dhigay kuwani waa ay tageen marka walaalka markuu arkay warqadaas gabadhan uu fiiriyay wajiga marka lama aqoonsan karin dharkii waa isla dharkii walaashii ay wadatay dahabkii waa ay gashan tahay diriskii isugu wacay sidoo kalena marka waxa uu wacay booliska maalnimadaasiiti goobta marka la yimid boolisku marka waxay dhaheen gabadhan walaasha miyaa ma hubta haa ku dhaw walaasheedu waay dharkaniiti waxa waaye xalay waan ku arkayay dahabka waan dahabkeedii ay gashan tahay okay booliska marka meedkii ka diiwaan gashteen sidaas ay marka gabadhan waxa ugu suurta gashay Bayal ee falkaniiti guracan wadatay in loo maleeyo in ay geeriyootay
oo dadkii deriska iyo walaalkeed waxa ay aamineen in ay geeriyoto sidaasita ay ku baxday. AJ iyo gabadhanayta Bayal ee xiriirka ka dhexeeya marka qorshahooda hadda waxa ay istuseen in ay isdhahaan haatan waxa arabteen waa idiin suurtageli kartaa bannaankaas soo istaagteen oo gabadhan maadaama loo aamin inay dhimatana jaanis weyn iyo u arkaysa ay kaga argoosan karto afarta siti qof ee qaraabada la ahaa. Ayadoo arrintu sidaasayta iska tahay Bayalna loo aaminay in ay geeriyootaba oo booliska xataa dhimashadeeda ay diiwaan geliyeen 15 bishii 11aad 2022 waxaa dhacday in xarunta booliska ay timaado ruux haweeney ah gobolka City Uttar Pradesh xilligaas iyadoo doonaysa gabar walaasheeda ah oo 3 maalin ay weysan yihiin ayada iyo hooyadeed in ay booliska soo wargeliyaan si raadin loogu sameeyo. Waxaana haweeneydaasii booliska fartiin ay u dhaaftay ay ku tiri muddo 3 maalin ah taleefanka gabadhaasii la waayo waan wacaynay cidna nagama aysan qabanin ilaa heer ugu dambeyn taleefankeedina uu damo. waxaana aan doonaynaa in meel uun gabadhaasii lagu soo sheego nolol iyo geeri fartiin sidaasii gabadhaantii booliska u dhaaftay. Booliska waxyaabaha ay weydiiyeen ruuxna haweeneyda waxay dhaheen miyay dhici jirtay hore in gabadhaantii walaasha ay ka yar ay u maqnaato waqti intaasii la eg mise markaana ugu horeyso. waxaana igu jawaabtay haweeneydaantii soo baadi goobtay walaasheed ee xarunta booliska timid markaan yaa ugu horeyso oo aan la yaabanahayba qadar intaasii la eg walaasheen in ay maqan tahay iyo gabadha ku tiri. Okay, booliska waxay dhan waa raadinaynaa taleefanka nambarka adreeska waxyaabahay markaa ka qorteen. waxaana booliska markaa ay sameeyeen raadin in gabadhaantii ugu dhaqaaqaan. waxyaabaha u sahli kara oo booliska istuseen waxa ay noqotay in gabadhaantii iyagoo GB location adeegsanaya booliska inay dhahaan gabadhaantii waa in aan baadi goobnaa taleefankeeda meeshii ugu dambeeyay oo lagu isticmaalo oo ka daarnaa meesha City aan baadi goobna waay. booliska raadintoodu waxa ay u soo tilmaamay GB locationka gurigii 2 maalin ka hor qof intuu ka soo wacay uu dhahay gabar walaasheeda ayaa geeriyootay oo media halkan yaalo. isla goobta City ya booliska ee noqotay in ay taleefankana loogu soo tilmaamo. boolisku waa ay yaabeen way halkaas waa nagala soo wacay qof yaana dhahayba xataa media inuu halkaa yaal noo sheegay oo walaashii inay markaa dhimatay. guriga City 2 qof 3 qof baa ku noolaay nin iyo xaaskiisa walaashii waa ay geeriyootay. sidee wax u jiraan booliska is dhaheen arrinta xoogaa way adkaatay marka. arrintu way adkaatay xoogaa oo waxa ay noqotay in boolisku calaamad su'aal ay ku noqoto. dhan kale haddana booliska waxa iska tuseen waxa marka ay noqotay in baaritaan bal gabadhaantii taleefankeeda dadkii u dambeeyay ee la hadashay in dabagal lagu sameeyo. dadkii ugu dambeeyay ee la hadashay qofkii ugu badnaay ee wada hadleen boolisku waxa uu u soo baxday in uu yahay ninkaantii lagu magacaabo AJ Kumar. waa ay soo dabagaleen booliska waxa ay noqotay in ninkaantii baadi goobkiisa ay booliska aad u raadiyaan maadaama ninkaantii uu ahaa qofkii u dambeeyay ee isla hadleen. waxa ay noqotay boolisku in raadin marka ay ku noqoto. AJ iyo Bayal xilliga wixii ka dambeeyay waxa ay sameeyeen horta isku afkarteen in ay isguursadaan marka hore oo guurkoodii markaa waa ay u dhacay. waxaana xilligaas City ay soo gateen hub waxa ay doonayeen in ay bisha 12aad afarteeda meesha loo gaaro in qorshahooda kale ay ku dhaqaaqaan maadaama haatan aan laga shakinaynin in afartaas City xubnood ee qaraabada gabadha la ahaa Bayal in ay u dhameeyaan sida City-na hawsha ay ku dhamaato iyo isla qorsheeyeen. boolisku waxa ay u suurto gashay in ay soo qabtaan 1 bishii 12aad 2022 ninkan lagu magacaabo AJ xilligaas City waxa la socotay gabadhaantii Bayal marka boolisku marka ay soo qabteen ninkana ay soo qabteen wareysiga lagula dhaqaaqay labada. gabadhan Bayal boolisku hore waxa uu marka ugu diiwaan gashneed in ay geeriyootay waa ay la yaabeen qaabkii sida marka ay wax ku dhaceenba. waxay dhaheen adigoo dhimashan ku diiwaan gelinay haddana waa nooshahay bas sidee wax u jira marka. waxay ku tiri hawshan anigiya maskaxdeeda lahaa waxa aan doonayay 4 xubnood in aan ka aarsado oo qaraabo ila ah. boolisku waxay ku dhaheen sababta maxaa kala dhaxeeyo marka 4 qaraabo ah u doonaysa in uu disho. waxay tiri gabadhan waxa aan doonayay in aan ka argoosto oo argoosigu waxa uu ku saleysan yahay in aan nafis ku dareemo oo 4 qof maadaama waalidkii sababtooda uu isku dileen waxa aan doonayay in marka aan u dhameeyo anoo ninkaantii xiriirka igala dhaxeeyo hadda aan isqabno
garab ka helaayo sidaas tii booliska ugu dhacday waxaana igu sii darto ay ku tiri maadaama afartan qaraabo ay lacagta nagu adkeeyeenoo waalidkeed dhowr mar ay murjiyeen go'aankeygu waxa uu ahaa afarta bisha meesha loo gaaro afarta bisha 12aad 2022 in aan u dhammayno qorshahooda aan galno in mid mid aan u qaarajino sidaas tii qorshaha ahay laakiin qorshii waa uu ka fashilmayo koodii bisha 12aad 2022 boolisko labadani qofba gacantii ku soo dhigeen walaalkeed markii uu ogaaday arrinkii waxa ay noqotay arrin la yaab leh gabadhana marka waxyaabaha ay sheegtay oo kale waxaa markaa ka mid inay tiri hawshan marka anaga aan galnay gabadhaas waxaan u doorbidnay aan u dilnay gabadhaniti booliska ee raadinteeda ay ku jireenoo raadkii ilaa iyo ugu dambeyn ay noqotay in iyaga lasoo qabto waxay dhaheen gabadhan bayl waxay dhahday gabadhan waa ii eg tahay waxa aan u dilay sababtana waxa ay tahay maadaama aan rabo in aan argoosi sameeyo gabadhan waa ii eg tahay dhahday waa aan ballaminay waxa aan ku samaynana waxay tahay in aan dilno dharkaygaan u bedelay dahabkaygaan u geliyey walaalkayga waxba kama ogeytin arrinkan oo ani keligay yaa booliska gabadha sida u sheegtay ku tiri qorshahan ani keligay yaa dejiyey oo maskaxdiisa sidaas tii ku go'aamiyey walaalkay habeenkaas tii waa aan seexiyey ani iyo ninkaniti AJ ninkan i qabo yaa hawshaniti fulini sidaas tii markaa ku dhahday oo waxa aan sameynay in gabadha aan dilno sidoo kalena marka aan yeelno in aan wejiga oo saliid karkaris sidaas marka wejigeedu uu ku bedelmay waxa ay tiri si walaalkayga uu u sii xaqiiqsadana waxa aan sameeyey warqadii aniga aan qoray farteeda walaalkayga waa u yaqaanay dhahday warqadii aan qoray oo gabadha aan dilimeedka aan ag dhigay waxa aan ku qoray abooy waxa aan ka halaabay wejiga bilaad markaan isku fiiriyeen waan is cajabin kari waayey sababta inaan is ceebsanayo una qalmin in la i guursan karo waxa aan go'aansaday in aan isdilo sidaas tii markaa walaalkayga aan intaan warqad qorayaan meedka gabadha aan dil aan agdhigay anigana waan baxsaday sidaas tii ku baxay tiri arrintu waxay noqotay la yaab gabar walaalkeed iyo derisku ay aamineen in ay dhimatay oo iyadu markaa fal dil ahba samaynayso laakiin waxa laga badbaadiyey afarta xubno ee qaraabada gabadhaniti la ahaa ay doonayeen in ay dilaan waxaana arrintoodu ay noqotay gobolka Uttar Pradesh ay noqotay mid aad oo la fajacaan waxaana ay noqotay in kiiskoodana maxkamad marka loo gudbiyo si xukunka ay leeyihiin ay u wajahaan ilaa dhamaadka haddii aan la soo gaartay qisooyinkana aad jeclaysanayso in aan waxyaabo badan oo qisooyin halkan inta ku soo gudbino fadlan nagu taageer in aad channelka ku soo biirto muuqaalkana aad sii faafiso si channelka meel dheer uu u gaaro waad ku mahadsantahay waqtiga ilaa halkan dhamaadka aad nala soo gaartay daawashadana aad ku bixisay qisadan inaad daawato